sidaad aragtaan halkan waa wadada xiriirisa Jowhar iyo Mahaday si kale hadii aan u dhahno waa wadada isku xirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar iyo magaalada biyo ka soo fatahay wabiga Shabeelle ayaa saameyn ku yeeshay wadadan wabiga ayaa fatahaad ka sameeyay duleedka waqooyi ee magaalada Jowhar waxaana hadda biyaha ay sababeen inuu hakad ku yimaado socodkii gaadiidka wadada laamiga ah ee isku xirta Jowhar iyo Mahaday sidoo kale fatahaadan waxa ay markaasi jartay wadada xiriirisa garoonka iyo waliba Jowhar garoonka waxa ku yaala xarunta ugu weyn ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda wadanka Burundi ay ku leeyihiin Shabeellaha Dhexe hadda sida aad aragtaan kani waa gaadiid weyn oo nooca xamuulka qaada ah waxa uu waday dhuxul balse waxa uu ku rogmaday halkan waxaana taasi ay sababtay in dhuxushii uu waday guud ahaanba ay biyaha raacdo marka laga reebo inta yar oo aad arkaysaan oo laga badbaadiyay sidoo kale gaadiidkan laftiisa ayaaba u baahan hadda in laga saaro biyaha sida muuqaalka aad ka aragtaana waxa loo keenay baldoosar ama saambaalle taa oo la rabo in ay ka jiido halkan oo biyaha ay ka saarto baabuurkan biyaha waxay sidoo kale baabi'iyeen dhul beereed ballaaran oo ay ku tacbanayeen dalagyo kala gedisan sida galleyda digirta sisinta masagada iyo dalagyo kale waxaana haatan ay qarka u saaran yihiin inay galaan deegaanada Xanshooley iyo Lebiga oo Jowhar u jira wax ka yar 3 kiiloomitir qoysas badan oo ku noolaa deegaanadan hadda waa ay bilaabeen inay barakacaan oo guryahoodii ay ka barakacaan iyagoo ka cabsi qaba in biyaha soo fatahay ay guryaha ugu soo galaan xilli habeen halka qoysaska kale ee wali rajada ka qaba inay deganaadaan iyagoo ay ka rarteen goobtan alaabaadkii cuslaa ee aan dhaqsada lagu bixin karin hadii biyaha ay markaas yimaadaan maraan maanta booqday halkan oo ah dhulka markaasi dhul beereedka biyaha ay jireen waxaan kula kulmay beeraley badan oo iyagu ka quusan la dalagii ay tacbadeen oo aysan jirin hadda wax ka soo naasacad midkood oo la hadlay Pakistan Media ayaa yiri hadii fatahaadan ay sii socoto waxa suuragal ah inay go'doomiyaan magaalada Jowhar ee xaruntu ah maamulka Hirshabeelle ma jirto ilaa hadda dadaalo xoog leh oo laga hortagayo biyaha oo la wado biyaha waxay ka soo fataheen wabiga waxay cagta mariyeen dhul beereed ballaaran isla markaana hadda waxay ku dhow yihiin inay barakiciyaan boqolaal qoys oo ku nool deegaanada Xanshooley iyo Lebiga sidoo kale biyaha waxay guud ahaan bajareen sidaan horeyba idinku sheegnay wadadan oo halbowle u hayd socodka Mahaday iyo Jowhar iyo sidoo kale Jowhar iyo garoonka diyaaradaha fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar channelkan adoo mahadsan